mudana wasiir la wareeg baabuurtan furayaashoodii waa kuwaan nagala wareeg intan kaliya noqon mayaane gaadiidka iyo haddii alla kuu roo yahay iyo wiilal saaranba waa diraynaa annaga iyo galmudug isku meel baan ku dhimanaynaa awalna isku meel baanu ku dhimanayno haddii annagoo iska soo horjeednana isku meel baan ku dhimanayna haddii abaar timaadana isku meel bay nagu helaysay haddii barwaaqata isku meel baan ku barwaaqoobayna isku meel ku dhimasho maanta ka fiican ma jirto mid aan haysanno marka iyadoo xaraga leh ilaahay agtiisa loogu dhowaanayo ajar laga helayo dadka iyaga ku walaaloobayaan dawladnimadeeda aan ku soo ceshanayno baan wada galaynaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin ku soo dhawow generaalkan ku soo dhawanaya suu kalmad qiimale u yiraahdo generaal soo dhawow gaadiidka kala duwan oo ah qaybihii ugu horeeyay oo maanta wareejinayno iyadoo go'aanku uu yahay iyo taladu ay tahay sida xukuumadda Puntland iyo Galmudugba ay goosteen in la iska difaaco cadawga labadaba la diriraya oo badda iyo buuraha galgalana 10 sanadood oo taageero la'aan ah oo aan dawladda dhexe waxba laga helayn ay waday iyo Galmudug oo hadda ay go'aansadeen in ay qabsadaan ama burburiyaan iskaashi buuxa ayaa xukuumaduhu ka sameeyeen ficilkiina waxa weeyaan qaybihii labaad ama saddexaad ayaanu hadda maanta ila kala wareegaynaa waxaana weeyaan waxa ku xiga wax kala soocan ma jiraan ciidanka oo ka wada hortaga iyo xukuumadaha oo mideeyay arrimahoodii difaaca halka ayay wax marayaan waxa weeyaan sidii gudoomiyaha gobolka u sheegayna waxaanu ku wareejinay waftiga uu hogaaminayo wasiirka amniga fiqi intaas ayaan ku xiranaynaa hadalkeena waxaan rabaa inaan halkan ka adkeeyo oo aan mahadcelin u soo jeediyo madaxweynaha dawladda Puntland mudane Saciid Dani iyo madaxweynaha dawladda Galmudug mudane Axmed Kaariye Qorqor oo shirar isdaba jooga ku galay magaalada Muqdisho toddobaadkii la soo dhaafay ayaa keenay natiijada maanta ah inaan la wareegno gaadiidkan 10ka ah oo kulli loo wada isticmaalayo hawlgalka ka socda koonfurta mudug iyo galgaduudba meel kasto argagixisadu ay joogto wax badanna gaadiidkani wuxuu ka tarayaa iyo hubkiisa saaran waxay ka tarayaan sidii argagixisada soo duushay loo jabin lahaa sidii argagixisadu aysan u qaadan sidii horay ay ugu qaadan jirtay in qolaba mar ay dubato ama inta weerar ku soo qaado ay kaligeed la dagaalamaan maanta wuxuu gaadiidkani muujinayaa garab istaagani wuxuu muujinayaa in loo midoobay argagixisada in la iska celiyo mana isdhahay argagixisadu way ka awood badnaan kartaa haddii Galmudug iyo Puntland ay isku kaashadaan argagixisadu way ka awood badnaan kartaa dhihimayo waxaan u jeedaa argagixisadii oo jabtay argagixisadii dadka reer mudug iyo dadka labadan maamul ku nool oo nabadgelyo ku seexda argagax la'aan ku seexdaan u jeedaa ififaalo fiican ayaa muuqda waxaan rabaa inaan leadershipka iyo hoggaanka labadan dawlad goboleed aan uga mahadceliyo inay garteen in maaragtay argagixisadaasi aysan qaraabo lahayn ehel lahayn gobol gaar lahayn ayaguba gobol kasta isaga yimaadeen ayna tahay in la dagaalanka iyo hawsha lagu hayo in meel la isuga soo wada jeesto